الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحبة الإسلام. والله يا مسلمين دافع عالم كمال كستيكتش واني دي سلامية ومدانا كزول ميسو إني تهيمد حق عدينيسا أما برارجينيسا ولا لهذا المسلمين تدافع عالم كمال كستيكتش جوغان إن شاء الرحمن وحن لدونيا إنان إذن لو ذاقو إن شاء الرحمن أما ندي سو قد بيو قضبات صبنة إلهي سبحانه وتعالى كبركين يو قريها مسلمين تا هدي سميانا ما يكون دغمان انتو داسنا وحي كسو أروريا على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفهم السلف الصالح. قريها بانتا مسلمين تا ويقبنيا قريها مسلمين تا ويبربريا قريها مسلمين تا وكو لغو كلا دقاقيا لغو كلا تغيا وبدكي باب بركة لغا قاضي راشينكي عنتدي باب بركة لقاضي إرزاقدي با عريري قشي حدنا والي سويدين كارلا يحي ورقوري غاني بركة محاي سبب واي كغزو شي دنبي مدعا إلا هدي ودعو وحاويا فبما كسب ديدينا إنغا أيا سبب صني إلهينا ما أوصلنا ظلمين هدي قوري بركة لغا قاضو إرزاق لغو عريريو ubadkii uu fasahaado oo waalidkii uu ku soo jeestayo dhibaateeyo oo hooyadii iyo macnaha hooyadii ama aabihiina is arki kari waayaan waxa intaas oo dhan daliilkaaga ah in gurigaasi barakada laga rafciyay. haddaba sidee baad ugu dadaali kartaa gurigaaga inuu ahaado guri barakooba haddaad tihiin hooyo aabi awlaadooda ama haddaad tahay qof keligii nool ama waalidkaaga hooyooyinka habaryaal ama iyo eedooyinkaada waalidiin ahaan kuwa qof la nool. insha raxmaan guryaha hadday doonayaan inay barakoobaan waa in qodobadana idiin sheegayo la hirgeliyaa laguna dhaqmaa inagoo ka dhimbil qaadanayna kitaabka ilaahay sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo fahamka dadkii naga horreeyay salafkii saalixa ahaa. أولاً قريقا وحا وكو باراكوبا ugu horeeya waxa weeyaan guriga in la laazimo tilaawati alqur'aan gurigaasi in lagu akhriyo qur'aanka rabbi subxaanahu wa tacaala daa'iman tilaawati alqur'aan alkariim daa'iman inuu yahay gurigaasi mid lagu akhrinayo waa min asbaab albarakati albuyuut aw albayt guriga ama guryaha inay barakoobaan waxyaabaha sababtu noqon kara waxa weeyaan gurigaasi inuu yahay mid walba ama mar walba mid qur'aanka ilaahay lagu akhrinayo. والدليل لقوله تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك ونسود جنب الله على كاسوا كتاب كانوا سود جنلي حال يمد بركي سنو بركة دحدي سكبوح قرآنك قريقا لغو أخريو قريقا كحصليو أولادا كحصليسا قريقا كبركوبيو إرزاق دا إلهي واسعينيا لكن إنك ما أنتكم مددالو ما أنت دي الآخريو أسبوعي أما بلين الآخرين بالاغا يابا هدنا مالك لا سوق هذا وحاين بركة سي قريقا كبركوبيو الدليل هذا نوع والحوجين أيو حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول لي هاي عن البيت الذي يقرأ أو تقرأ فيه القرآن تسكنه الملائكة وتهجره الشياطين قريقا لغو أخرين أيو قرآنك لحديث لغو أخريو أول ملائكة إلهي بسودكت يحسلون ذي إلهينا ويكو سودكتا الشياطين تانا قريقا سي ويكا إريس ميسايو ويكا تغيسا قرآنك قريقا لغو أخري وكبركوبا ملائكة إلهي بصو حاضرتو لسودكت قريقا الشياطين تانا قريقا ويكا فيغيسايو ويكا تغيسا ومن أسباب sababta ugu horeysa guriga ku barakoobi kara waa inaad ku badiso tilaawati alqur'aan alkariim barakada labaad
gurigaaga inuu barakoobaad doonayso waxaa weeyaan albasmala wa dikrullahi tacaala. gurigaaga markaad soo galaysa intaada soo gelin ka hor magaca ilaahay ku soo galo oo dheh bismillaah. gurigaaga wuu barakoobayaa, ubadkaaga way barakoobaysaa, yacni hantidaada way barakoobaysaa, arsaaqdan ilaahay wuu ku waasicinaya. waxaana daliil u ah qowlka nabiga sal alla alayh wasalam uu ku yidhi xadiid idaa dakhala arajulu beytah, markuu ninka gurigiisa soo gelayo, fadakara allaha tacaala ilaahay uu xuso uu yidhaahdo bismillaah cinda dukhuulihi markuu soo galo iyo wa cinda tacaamihi markuu cuntada cunayo bismillaah yidhaahdaa, qaala ashaytaanu liasxaabih, shaytaankii u wakiilnaaye daba socodayee qariinka u ahaa baa wuxuu ku odhanayaa shayaadiinta kale bannaankii dabadda taagneed, laa mabiita lakum walaa cashaa'a lakum, caawa meelaad barisaan ood seexataana heli maysaan, cuntana heli maysaan. maxaa u diiday inay meelay baryaan oo seexdaan guriga ay ka weeyaan, cuntay cunaan inay ka waayaan? maxaa sabab u ah? markuu qofku guriga soo gelaya inuu bismillaah yidhaahdo, marka uu cuntada cunayana bismillaah uu yidhaahdo. waa waxyaabaha kugu kaalmayn karo in aad hesho baraka gurigaagii, awlaadaadii risaaqdan ilaahay kugu waasiciyo. qodobka saddexaad guriga ku barakoobaya waxa weeyaan asadaqa, inaad badiso sadaqada, khaasatan mideeda siriga ah. bal nabiga sal allahu alayh wasalam xadiista waxay gaarsiisay sadaqatu sirri fa inahaa tudfi'u ghadaba rabb, sadaqada sirta ah oo aanan cidna kula ogeyn, adigii qalbigaaga ilaahay is ogtihiin, oo aad baxsato, in ilaahay subxaanahu wa tacaala sabab sadaqadaasi kaga dhigayo in ilaahay cadhadiisu ay qabowdo oy degto. marka sadaqada siriga oo aad baxsato cidna aan kula ogeyn, in ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga dhigo mid ay dabisa ilaahay subxaanahu wa tacaala cadhadiisa uu cadhoonayo. marka sadaqada aad in loogu dadaalo, waana waxyaabaha ilahay guriga ku barakeynayo. xataa tajriba ka qaad, xilli adi odaygaaga isku kacsan tihiin, xilli culeysaad iyo diiq iyo cidhiidhi uu ku hayo, xilli mashaakil adduunya kugu furan tahay, sadaqa aan cid ilaahay ahayn oo kula ogeyn balbaxso, si durbaba ilaahay kaaga soo jawaabaya, in cidhiidhigaa iyo dhibahaasi mashaakilkaa ku jirto ilaahay kaaga qaadaya. qodobka afraad waxaa weeyaan silatu raxim, inaad xiriiriso qaraabadaada. wa min asbaab albarakati albeyt aw albuyuut, guryaha sababta ilaahay ku barakay waxaa ka mid ah inaad qaraabadaada xidhiiriso, koodii meel fog joogay iyo koodii meel dhow joogayba, inaad mar walba wacdo ood xidhiiriso oo aad ka warqabto. waxaana daliil u ah xadiiska nabiga calayhi asalaatu wasalaam uu lahaa ina silata alraxim, qaraabadoo la xidhiiriya, wa xusnu lkhuluq, dabci wanaagsan oo lala dhaqmo basharkii bini aadamka lagula dhaqmo, wa xusni aljiwaar, yacni deriska oo si wanaagsan oo dabci wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo, taziidu fi risqi wa tutiilu alcumuur. saddexdaas xaaladood oo ugu horeyso xiriirinta, yacni waxaa weeyaan qaraabada, waxa ilaahay sababkaaga dhigaya ilaahay inuu markaa ku ziyaadiyo irsaaq dheeri ah, intii lagu siin lahaa lagu labalaabo, cimrigaagana ilaahay kuu dheereeyo isagoo ah mid barakoobay oo barakaysan. maxaa ku gaartay? silata araxim, qaraabadii ood xiriirisay. waa min asbaab ilaahay guryaha ku barakeeya bay ka mid tahay, oo ilaahay subxaana wa tacaala loogu furto khazaa'intiisa ayay ka mid tahay. qodobka shanaad oo ilaahay guryaha ku barakeynaya waxaa ka mid ah altabkiiru fi talabi risq, inaad u jarmaado ood u kallahdo adigoo ilaahay arsaaqdiisa raadinaya. dadka shaqaysta ee arooryadii u jarmaada shaqadoodii way barakaysan yihin. nabi maxamed baa u duceeyey sal alla alay wasalam, maxaa yeele nabigu wuxuu yidhi buurika liummatii fii bukuurihaa, waxaa la barakeeyey oo barakoobay ummaddayda kuwoodii jarmaada aroortii oo arsaaqda ilaahay raadsado, ay bimacnaa alkhuruuj litalabi risq, ayagoo arsaaqda ilaahay raadsanaya ayay usoo baxeen.
marka haddaad ganacsato tahay ama meherad yaraad leedahay ha ku gaarin hurdada xilli dambo si aad waqti dambood u furato maxaa yeelay subaxii jarmaadida jarmaadood meheradaada ku jarmaadaado ilaahay arsaaqdiisa raadinayo waxay ka mid tahay min asbaab ilaahay inuu subxaanahu watacaala gurigaaga ku barakaynayo allana subxaanahu watacaala oo marka awlaadaada ku xifdinayo qodobka lixaad waxa weeyaan iqaamatu salaa liwaqtiha aw liawqaatiha salaada oo lagu ogo waqtigeeda oo lagu tukado hadduu rag yahayna masaajidka waqtigeeda ku tukado hadday dumar tahayna xilliga masaajidka la galaa iyaduna musallaha gurigay dul saaran tahay waa min asbaab ilaahay subxaana watacaala uu ku barakeeyo guryaha iyo awlaadda irsaaqdan uu ku waasiciyo waa nabiga sal alay wasalam baa rabbi wuxuu ku yidhaahday wa'mur ahlaka bisalaat wastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narzuqak waalcaaqibatu liltaqwa ehelkaaga amar salaada inay ogaan waqtigoodii oo ayna ku sabraan salaada dusheeda salaada maxaa yeelay weysaqaad baa la maraya tahaara la maraya waa la istaagayaa rabbi baa hor istaagaysaa intaasoo idil sabar bay un tahay lagu sabro alla wuxuu leeyahay haddii salaadaasi uu qofka markaasi la amrayo uu ogaayo uuna ku sugnaado ku sabraayo nebiga waxaa lagu yidhi laa nas'aluka risqan arsaaq weydiin mayno irsaaq inuu ilahay ku waasiciyo oo irsaaqdaada ilaahay subxaana watacaala cala duulu ku siiyo doonaysid salaadana waqtigeedii ku dadaal kuna sabr alla markaas wuxuu ku yidhahday laa nazaluka risqan arsaaq weydiin mayno naxnu narzuquk annagaa ku arsaaqayno waalcaaqibatu litaqwa caaqibadii ciribta dambena kuwa ilaahay ka cabsada ayuu u sugnaaday marka الصلاة لوقتها أو لأوقاتها أو لقوت كذا ومن أسباب بركة يعني رزق أرزاق ذا إلهي إن إلهي سبحانه وتعالى وكو بركة بيوت ذا إلهي وبركة قضب كتضبات وإلهي يقوليها وكو بركة يوحى كمدا التوكل على الله حق توكله قفك إن أتلا صار تربيجي تلا صار شد حق ينبت أوليه الله سبحانه وتعالى النبي يسوع ليه لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانه هداد إلهي أتلسار الله هيدين تلسار شذا نبت يحق أولي أتلسار الله هيدين إلهي وحيدين أرزاق لها سيدي وأرزاقه شمروه شمبراس دو إله ورزقه تغتو خماسا صبحي بيجيتك دشي كسر دوليسا يحالا يكبريسي إيضا بقلا لنا بقيد إبريها قاعجيسا أرزاق دا بيسك إرزاق سنيسا إلهي سبحانه وتعالى الرضو لغي markii galabkii ay laabanaysan godkeedii iyo meesha ku hooyaraysa u laabatana wataruuxu bitaana waxay u laabanaysaa iyadoo caloosheedii ay buuxdaa marmarba waxaad arkaysaa meel fog waad is leedahay meesha tani dhirna kuma taalo geedna kuma yaalo ummad ilaahay kalena kuma nool oo waxaad arkaysaa shimbirtu ay wax ka kubinaysa ay ka cunayso raashin ama ay ka arsaaqanayso irsaaqda ilaahay baa ugu talagalay taqdu ghimasan wa taruuxu bitaana iyadoo buglaalan bay ka soo dhaadhacaysaa geedkii iyadoo caloosheedii ay buuxda bayna ku laabanaysaa macnaheedu waxaa weeyaan arsaaqda ilaahay subxaana watacaala isaga ayaa bixiye ilaahay uu tala saaro wixii ku siiyana ku kalsoonow oo ku qanac qodobka sideedaad waxaa weeyaan oo min baabi barakatu lbuyuut guryaha ilaahay ku barakeyna ka mida mulaazamatu listigfaar in qofka uu laazimo istigfaarta ood laazimto oo wardi ka dhigato oo mar walba ku mashquuloso waa sababta ilaahay gurigaagu ku barakaynayo awlaadaadu ku xasilanayo irsaaqdan ilaahay kugu waasicinayo لقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو إلى من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب نبي عليا روحي اللازمة استغفارته إلهي وحو إيليا ضيق عريري كستأو قلو
makaanu makhraj meel uga baxa buu u samaynayaa wa min kulli hammin faraja wax kastoo qalbigiisa ku soo dhaco uu hamiyana faraj baa ilaahay uga furayaa warazaqahu min xaysu laa yaxtasib ilaahayna wuxuu ka arsaaqayaa meeluusan marnaba filanaynin marka istikfaarta miro badan baa lagu goostaaye ka faa'iidayso gurigaaga markaad joogto istikfaarta laazim qodobka sagaalaad oo ilaahay guryaha ku barakeynaya waxaa ka mid ah al-inshigaalu bixawaa'iji cibaadillah inaad ku mashquusho ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa xawaa'ijtoodii danahooda inaad u qabato mid laguu dirsaday iyo midaan laguu dirsaninba maantoo dhan aad tafaqudo ood raadiso inaad u guddo xawaa'ijta addoomaha ilaahay mid baa jiisa mid baa daciifa mid baa hadalkiisa caddaysan karaynin intaasoo idil xawaa'ijta ilaahay addoomihiisood ku mashquulsan tahay ilaahay adiguna taaduu kabayaa gurigaagu ku barakeynaya waxaa daliil u ah nabiga sal alla alayh wasalam xadiidkiisu waa xadiisi qudsigu ilaahay ka warinay xadiisi qudsigu wuxuu rabbi ku leeyahay wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni caqiih ilaahay wuxuu u kaalmeeyaa oo xawaa'ijtiisii danihiisu ururiyaa addoonkiisa inta addoonka uu yahay midkii u kaalmaynayo u gargaarayo ilaahay addoomihiisa ama ilaahay addoonkiisa kale oo walaalkii ah cajiib waa marka inaad marka waaga kuu bariyo ay ka mid tahay noloshaada inaad ururiso ood u gargaarto addoomaha ilaahay si adina ilaahay gurigaaga u barakeeyo owlaadaada u barakeeyo arsaaqdana ilaahay kugu waasiciyo qodobka 10aad oo ilaahay arsaaqda uu kugu waasicinayo waxaa ka mid ah التفكر بالموت inaad ka fakarto geerida inaad ka fakarto daa'iman goortay ku imaanayso sababtay kugu imaanayso yacni adoo ilaahay caasina may ku imaanaysaa ilaahay adoo adeecay may ku imaanaysaa oo mar walba qalbiga ku haysa adoo sujuudsanama ilaahay kalaamkiisa haynay ku imaado tafakurkaad ka fakaraysa mowtka waa min asbaab barakatu lbuyuut wa barakatu lrisq wa barakatu lawlaad الباب كان ليه الإمام أبو علي الدقاق أيا وحو ليه من أكثر من ذكر الموت روحي بضيا حصوص الشدة جيريدة أكرم بثلاث سدح أرمود بإلهك أرزقيا منها سدح داسي أرمود وحا كبدا بساطة الرزق إلهي أرزاق دا يواسعين إياه مرك إلهي أرزاق دكو واسعي هدا دونيست إلهي أولادي نكو بركي هدا دونيست إلهي زوجتي نكو أصلحي هدا دونيست إلهي سبحانه وتعالى أدقنا البد أدوك لغا أقبل آخرا إلهي أقبل كاقا ديق الدعوين كادي قراءة القرآن كادا دونيست tobanka xaaladood ku dadaal inkastoo jiri karta in ka badan xaalada ah oo guryaha lagu barkoobayo laakiin tobanka ugu muhiimsan in aad ku tafakurto loo baahan yahay waa tobankaasi aan ku soo guud maro si aad ugu dadaasho waa iyadoo faahfaahin baa yahayd laakiin hadda waxaa weeyaan in aad tobankaasi ku dadaasho waxaa ugu horeeyo tilaawatu alqur'aani alkariim qur'aanka akhrintiisa gurigiina ku badiso waa laba البسملة وذكر الله إن الجورج مركز سجليس ملك استأد جليس بق ذكر إله حسكي ستكون شو أد بسم الله أد عادي ستضعف كذا وقضب كسدحات الصدقة صدقة دينا كود ذا شو تيدي ولي بسرت وأنا عندي أنا ذيك إله يا حين كلوجين قضب كفرد وحويان صلة الرحم قرابة ولا حريريو أيضا وصابت إلهي أولاداada ku barakeenayo arsaaqda ilaahay kugu waasicinayo gurigaaga ku barakeenayo qodobka shanaad waxaa weeyaan التبكير في طلب الرزق inaad u jarmaado adigoo ilaahay arsaaqdiisa raadinaya xalaasha inaad jarmaado qodobka lixaad waxaa weeyaan إقامة الصلاة لوقتها ولأوقاتها salaada oo aad ogto waqtigeedii aad ku sugto qodobka toddobaad waxaa weeyaan التوكل على الله حق توكله إلهنا تلا سارشة حق ينبت إليه قضب كسيدي ذو حويان ملازمة الاستغفار إن لازمتو أجوكتيسو استغفار تدبي نافدلبك إلهي أدكم دبي نافدل بليسيد قضب كسيدي ذو حويان الانشغال بحوائج عباد الله إن تكون مشغوشو قدست حوائج تأضوبه إلهي قضب كتبنا ذو حويان
التفكر بالموت جيريدا إن الحسوس تدبدسو انت اسمو حالقنا على فوائده إن أولاد إلهي كوكو بركيو إرزاق إلهي كوكو واسعيو قريقا أقول نقض قري بركوبا طبقا قضبا كنت دالو ولا الله يغنى أنقارسينو انت أيان دور إنا ريدي لو ذاقو هذا والله ولي التوفيق وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته